ugu yaraan laba arday ayaa dhaawacantay ka gadaal dibadba xoogan oo ay saaka dhageen qaar ka mid ah ardayda uu socday imtixaanka sanad dugsiyeedka 2018-2019 ee ay qaadaysa wasaaradda waxbarashada kuwaas oo ka gadoodsanaa hadalkii xari ka soo yeeray wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya. qaar ka mid ardayda barnaamijkiisa ayaa sheegay inay ka xun yihiin hadalka wasiirka, dhanka kalena waxa ay sheegeen in dad wata tuuta ciidamada dawladda ay rasaas ku fureen isla markaana ay ku dhaawacmeen ardayda barnaamijka dhigaysa sida ay hadalka u dhigeen. وزارة وحبرشنا دولة كل مرة أردنا تعاقب في سلاسو أنا قش مصابين أي دولة أي صبح وزارة أي صبح سي أنا وأنا مسكين وأرضها كبعض المركز أي خلافين تعاقب قتين تذكر اللي معنا ذا قتين أردنا ذي أي أنا تعاقب بردرين تاسني وعيالي أنا مان لعبي وعقل قولنا dadka markaan mudaharaadka aan soo qabanay xambada noo qaateen la dhashay gobolkan joogo isku sheegay macnaha dad reer gobolka Hiiraan oo haddana markaas ciyaalkii yarka mudaharaada xambada gurida oo kaliya gurida aadaan ugu xunnahay waan cabaaraynaa kuwaas saaki waa dhaawacantay intaan ognahay labo laakiin waxa la sheegaa dad kale inta luqida ku dhaawacmay intaan ognahay laakiin aniga ka shakhsi ahaan meeshaas ay fir oo iga soo gaaray ka shakhsi ahaan nuur ahaan in arday ay halkaas caloosha ay xabad ugu dhacday in dadka yeelaanane waa dad oo diriiska ciidanka xiran ma aan anaga hadii ay diriis xiriin inay nagu gumaadaan ma aan hadii ay diriis xiriin inay anaga nagu jukayaan waxaan wadana anaga diriis ayaga lamid ah dawladaha shisheeye way qiimeeyaan ardayda hadii ay banaan bax sameynayaan hadii kale dawladda ay kala tashtaan ayna xalay waan wargelin inaan biri mudaharaadayna oo aan ka soo horjeedno wasiirka maalmahan waa maqnay wuxuu ku maqnay xidka asigoo xidka ku maqan oo soo laabtay markuu soo laabtay imtixaanka xabba kama jiraan oo dhaay waxaan naga dilay lawil ayay naga xabad noo gurteen warka waxa doonaynaa in gowrac bariyo dawladda inay meel loo soo saaro wasaaradda waxbarashada imtixaanka bay ma yeelayno afarta maadimo harti bas ku qaracay Soomaaliya ku qaracay mala wasaaradda waxbarashada waxa uu sheegay imtixaan inaan galayn imtixaanta baan galayn kii hore markay gateen mid kale lacag ay rabaan anagana lacag ma rabno marka uu soo banaxbaxnay raayigeena ayaa ardada reer Hiiraan siiba reer Beledweyne arday nigmida laba arday nigmida xabad ku rugteen xaqiisii waajibkiisii waanu baahnaa dhinaca kale ma jirto wax war oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dawladda iyo waliba sidoo kale maamulka degmada Beledweyne ee ku aadan ardayda lagu dhaawacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Cabdishakuur Maxamed Xasan, SAB TV, Beledweyne.